السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقض عن وحيسالة إلهي سبحانه وتعالى من البانك لجوجنو هاي نقود حفتيو مرول بوحد أباهنتهاي إن نفط هذا لا ترتنتو أو أدبرتو وحياب عسب مكرينو ومسيحيا ومكرينو وح عسبنا مبرنينو إنت أن سمينينو وحا أن مرول بسمينو إنت أن أفكرينو سيدا أن مرول بأفكرنو مركا أي نلشو أتكاتو لكل أنت عقبت درين تدي قد إيه عريري نفط هذا كنت حلوجي أو كو خصب سيدي أي أنو قل لهيد مد أدق أو strong caqabadu waxay inoogu dhacaan waxay nolosheena u yimaadaan sidii aan isku bedeli lahayn ee inooguma yimaadaan siday dhib inoogu geysan lahaayeen wadada kaliya ama sida kaliya ee aad ku kori karto horumar ku gaari karto nolosha wax cusub aad ku soo kordhin karto waa inaad la tartanto naftaada mar walba iyo maalin walba ku khasab in naftaadu ay qabato intay shalay qabatay ka badan ku hay maskaxdaada kuna dadaal in aad naftaada la tartanto inta aadan la tartamin dadka kale in aad la tartantid naftaada waa wadada kaliya ee kuu fududeynayso in aad korto oo koriimo nafeed aad yeelato maantay naftaada maal gasho oo faa'iidada guro maalinba maalinta ka dambaysa bilba bisha ka dambaysa maalgashiga ugu wanaagsan ee aad naftaada ku samayn kartana waa in aad wax barato aqoontu waxay kuu sababaysaa oo ku siinaysaa inaad wax badan kasbatid in aad noqotid qof dadka ka soocan oo unique gaar ah waa in aad caqabad walba ula dhaqantid ugu dadaashid sidaad uga gudbi lahayd ilaa intaad ka gaarayso meeshii uu hadafkaagu ahaa inaad gaarto ma heli doontid waqti mustaqbalka aad kaga faaruqi doontid caqabad ama aysan jiri doonin inaysan caqabad ku haysanin caqabadu waa waqtiga la joogo waqtiguna mar walba waa hadda ay taagtadaadan ka faa'iidayso mar walba nolosha waxaa jirta caqabad taasoo ku siinaysa dhiirigelin aad kaga dhaqaaqdo booska aad joogtid uguna talaabto marxalad kale yacni caqabadaas aad dareentay ayaa kuu sababaysa inaad ka tilaabto oo horumar kale u gudubtid waa inaad caqabada mar walba ula falgashaa ula dhaqantaa si degan si aad u xakamayso dhibaatooyinka aad la kulmaysid si aad mustaqbal ifhaya u hesho in aad sabir iyo taxamul u yeelatid ilaa aad ka gaarayso meeshii aad hiigsanaysay ee aad rabtay marka aad la kulanto ama ku soo marto nolosha waqtiyo adag ogow in caqabadu aysan noloshaada ugu jirin inay ku burburiyaan balse uu Allah ku og yahay inaad tahay qof awoodeeda leh kana bixi kara una qaada adiga inay ku hormarinayaan ku korinayaan ku xoreynayaan waxaan idinka tagayaa dhamaantiin fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh